والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اخوتي في العقيدة، درس كان لغو تلقى نخريه مفهوم السياسة الشرعية، runtii si haddii loo eego deris ballaaran noqon kara, si haddii loo eegana la koobi karo qadiyadda siyaasa sharciya ku saabsisan. aan u malaynayo cajlado hore halkan lagu qabtayba inay yaalliin. waxaan isku dayaa inaan si kooban uga warramo. ciddii isagoo balballaaran u baahan, waxaan filayaa 15 sano ka hor baa wasladan ku galla inaad masaajidka helaysaan. kelimatu siyaasa marka la isdhaahdo sharxa, waa kelmad runtii bini aadamku siyaabo badan oo kala gedisan uu u sharxo, mawaaqif kala gedisanna uu iska taago, gaal iyo muslimba. ilaa xad reer galbeedka marka la joogo, maalan Hans Morgenthau ninka la yidhaahdo ee macruufka kitaab kale, markuu siyaasa sharxaya wuxuu ku tilmaamaya waa siraac min ajli alquwa wasatwa. waa lagdanka buu yidhi xoogga iyo maamulka sare la isku haystaa siyaasad la yidhahda buu ku tilmaamaya. Harold Laswell nin la yidhaahdo iyaga ka mid isna wuxuu leeyahay asiyaasa hiya sulta watanfiid buu yidhi. waa sultada baawarka iyo fulinta alladii yuxadid man yaxsil calaa maada wamata wakayf. waa awoodda lagu xadida buu leeyahay man yaxsil calaa maada, kumaa waxaan helaya ama maamulaya, goormuu maamulaya iyo siduu u maamulaya. waa eray runtii aan odhan karo waa eray mataata ama macnihiisa la balballaadhiyo marka la doono. sidaa daraaddeed baa John Barry Duncan ninka la yidhaahdo oo kitaab leh ayaa fasal ka mida kitaabkiisa cilmi siyaasi uu bixiyey, ayuu su-aal isweydiinaya. uu leeyahay maa hiya siyaasa, siyaasadda maxaa la yidhaahdaa? marka uu si kooban u sharxi kari waayo 32 beyj buu ku sharxayaa. markaa maa hiya siyaasa markuu isweydiiyey ee uu yidhi sharax, ayaa waxay ka qaadatay 32 beyj inuu isku dayo ereygaasi inuu sugo ama se uu sharxo. akhiiran marka dambe wuxuu odhanayaa waxaa jira isticmaalaat nawciya iyo isticmaalaat hayru nawciya. wuxuu ku tilmaamayo isticmaalka hayru nawciga buu leeyahay waa kelmadu siyaasa meesha ay ku jirto muraadifkeeda ama kelmad la macnaabaa lagu bedeli karaa. mararka qaarkood al-idaara bay iskala mid tahay buu leeyahay, oo siyaasatu naqli iyo siyaasa taaqa iyo siyaasa kada marka la tilmaamayo waa kelimatu lidaara bay la macnato tilmaamaya. mararka qaarkood kelima al-istraatiijiya buu ku macnaynaya, sida siyaasat al-harb aw siyaasat al-xukuuma iyo wixii la mida. mararka qaarkoodna wuxuu leeyahay waa kelmad la xaqiro oo haddii lagugu yidhaahdo buu yidhi ceeb ah. waa khiyaamada iyo dadluminta buu leeyahay iyo camalka mikafiiliga ah laftiisa siyaasa loo yaqaanaa buu leeyahay. marka xataa mustalaxaasi buu leeyahay waa mustalax jira, qofka la xaqirayaana lagu tilmaamaa buu odhanaya. markan aragtidaasoo dhan ka soo gudbo, culimmada sharaxda qaar ka mid waxaabay ku doodaan ereyga siyaasa inaanu ahayn erey af carabiya oo asal kale u raadiyaan, laakiin xaqiiqadu waxay u dhowday inuu yahay erey af carabiya oo rasmiya oo shicirkii jaahiliga carbeed hore laga helayo. bale ibnatu nucmaan ibnulmundir markii aabaheed boqortooyada uu waayey ee markii dambe iyadoo markii horeyna boqor ahaan jirto oo guri magac iyo maamuus la ku soo kortay, mar dambe ay rafaaday bay gabay tirinaysay ay kelmadan fiina nasuusu nnaasa walamru amruna, yani weedhaa uu ku jiro. calaa kulli xaal waxaan leenahay waa kelmad carbeed oo saxa, macaani dhowreeyay qolada macaajimtu soo naqliyaan. uu u badan yahay macnaha tadbiir ama maamul, in wax la maamulo macnaha baa luqada macnayaasha la soo gudbiyo ka mid ah. waa weedh aan qur-aanka ku soo aroorin lafdiga kani, laakiin sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ku soo aroortay. xadiidka uu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, kaanat banuu israa'iil tasusuhum alanbiyaa. wuxuu nebigu leeyahay reer banu israa'iil waxay ahaayeen kuwo ay maamulaan
nebiyadu kullamaa halaka nebiyun khalafahu nebiy mar kastoo nebi uu dhinto nebi kale ayaa dhexli jiro ka dambayn jiray aniga se nebi igama dambeeya buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aniga se nebi igama dambeeyo xadiidkaasoo saxiixayn ku yaalla waxau nebigu ku tilmaamayaa reer banu israa'iil inay siyaasiyiintoodu ahaayeen nebiyadoodii oo ambiyadu inay ahaayeen kuwii maamuli jiray idan lafdu siyaasa waa eraynu ku tilmaami karno inuu maamul yahay sharci marka lagu daro asiyaasa sharciya marka la yidhaahdo shareecada loo idaafeeyo loo nisbeeyo waa inay noqoto un siyaasad ku abtirsata kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ama siyaasad waxyi ku abtirsata waxyigu ilaahay cumuuman wuxuu inoo tilmaamayaa alaa yaclamu man khalaq wa huwa latiifu lkhabiir ilaahay miyaanu ogeyn cidda u abuuray isagoo latiifu lkhabiir waxaana nebiyada la tilmaamayay nebi walba shareeco la soo siiyey uu dadka ku maamulo walikullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja alaa lahu alkhalq walamr nusuustaasoo dhammi waxa ay sheegaysaa shareecadu inay u soo degto in nolosha bini aadamka lagu maamulo tiisa qarsoon ee qalbiga ku saabsiisan iyo ruuxda tiisa muuqatee daahirka ah tiisa aakhireed ta adduunyo nolosha qofka bini aadamkii leeyahay oo dhan in lagu maamulo walidaalika yaa culamada muslimiinta tacaariiftay bixiyaan maalan ibnu caqiil alxambali wuxuu odhanayaa siyaasadda waxaa la yidhahda buu yidhaha siyaasa maa kana min alafcaal bixayثu yakunu الnaasu bihi aqrabu ila الصilaax وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا نزل به وحي فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق شرع أي لم يخالف ما نطق به شرع فصحيح وإن أردت ما نطق به شرع فغلط وتغلط للصحابة وهذا نينك كان مركان صوك وحليه سياسة وحا يدهد بوليه acmaasha ama afcaasha wixii dadku u dhaweeya wanaag iyo samaha iyo silaaxa wixii samaha qofka u dhaweeya ayaa siyaasad ee xumaha ka fogeeya xataa yaan quraan iyo nusuus xadiisi ku soo degin buu leeyahay laakiin waxa laga rabaa waxa weeyaan inaanay quraan iyo nusuus xadiisa khilaafin sadaraadeed bay culimada fanniga ka warramay muslimiintii waxay u qaybiyaan nusuusta sharciga wixii uu lafdigu quraan uu ka warramayo waa siyaasa ilaahiya bay yidhaahdaan wixii uu ka warramayo axaadiista nebigu waa siyaasa nabawiya bay ku tilmaamaan wixii kalena waa siyaasat almuluuk bay sheegaan ama alumaraa ka fannin marka loo eego waa fan ka mida funuunta fiqiga islaamiga ee shareecada islaamiga lagu daraaseeyo waa fanni muddo soo socday waqtiyo horena culamada muslimiinta ee kutub gaara u qortay ragga kutubta u qoray hore waxaa ka mid ahaa 450kii sheekhii dhintay maawardi la odhan jiray 3 kitaab buu leeyahay oo masaladan ku saabsan al-ahkaam as-sultaaniya iyo as-suluk fi siyasati al-muluk iyo tashiil nadari wa ta'jiil al-dhafr 3 kitaab wuxuu kaga warramayaa qadaaya siyaasa waxaa ka mid ah ragga hore wax ka qoray abu ya'la al-farraa hanbali ahaa 458kii dhintay waxaa ka mid ahaa imaam al-juwayni imaam al-haramayn 478 hijriyada kitaabkiisa al-ghiyathi siyaasaddu markaan soo duuduubno markaa macnaheeda lugawiga iyo keeda sharcigii ma kala foga macnaha lugawiga ay kalimatu saasa yasuusu tacni al-islaax wal-istislaax waa shayga oo la hagaajiyo oo la wanaajiyo oo xagga samaha iyo wanaagga loo sii dhaweeyo idan waxa weeyaan maslaxada ta u fiican in lala yimaado la dhammaystiro fasaadkana in la yareeyo ama la tirtiro ama se waa jid bay yidhaahdaan adduun iyo aakhiraba lagu liibaano jid yani siyaasadda sharciga waxay kaga gedisantahay siyaasadda kale siyaasaadka kale waxaa lagu qoondeeyaa in noloshan un lagu birbidhsado laakiin siyaasa sharciya alislaamiya waxay itijaaheedu u jeedaa qofka in la liibaansiin karo aakhiro iyo adduun labadaba inuu liibaani karo sida daraaddeed
ayaa waxaa la tilmaamaa cidda siyaasadda sharciga islaamiga hoggaan wadeenka ka ahi inay yihiin nebiyada, dabeetana dadku sida ilaahay iyo rusushiisa ugu kala dhow yihiin ee ugu kala cibaado badan yihiin ee ugu kala cilmi badan yihiin inay ugu kala janjeedhaan. lafdigan markaan is idhaahdo markaa sharax waa eray runtii aan ku soo koobi karo weer qura oo ah wixii wanaaga bulshada dhexdeeda in lagu beero min maamul ilaa mijo, wixii xuma ah ama fasaadana in la taqliiliyo. wanaaggaasi baabku doonaba ha ku saabsanaado, cilmi ha ku saabsanaado, dhaqaale ha ku saabsanaado, caafimaad ha ku saabsanaado, wuxuu doona ha ku saabsanaado. wanaag oo dhan in la xasiliyo oo la kobciyo, xumaan oo dhan waxay doonto ha ku saabsanaato in la yareeyo oo la dhimo ama se la tirtiro. maadaama uu siyaasadda aynu nooca ku tilmaamnay, siyaasaddu waa laba qaybood markaa. qaybi waa mansuus oo kitaab iyo qur-aan baa sheegaya, waa qayb haabita. haabitku waxa weeyaan wakhtiga iyo zamanka iyo duruufta islama bedesho ee sidaasun bay ahaanaysaa inta basharku bashar iyaanu bini aadamnimada ka baxaynin, iyana sideeday haabit u ahaanaysaa, u sugnaanaysaa, isma bedesho. qaybina waa qayb marin ah. marin waxaan u jeednaa waa qayb isbedbedeli karta, ku xidhan duruufta la nool yahay, zamanka la joogo, awoodda la leeyahay, itaalka la haysto, arrimahaasi ku xidhan. sida awgeed islaamku yani maadaama siyaasaddu bulsho la maamulayo, bulshaduna aanay isku itaal iyo awood wada ahayn, waxaa dhici karta mar inay joogto marxalati dacf, marxalaadkay liidatay. marxaladii nebi maxamed allaha kufu aydiikum waaqiimu salaa, gacmihiina laabtoo salaaduna oga lagu tilmaamayay. waxaa kaloo dhici karta inuu mujtamacu gaadhsiisan yahay marxalatu lkamaala. alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina, oo ah marxalad islaamku iyo dowladnimadiisi iyo wixiisii o dham ay dhammaystirmeen oo fulin qura u baahan. sida daraaddeed qaybta haabitka aan iska gadinin ee mansuuska iyada lama taataabto, waxna iskama bedeli karaan, waana sidaa qur-aan iyo xadiidku ay u sheegeen. qaybta marinkaa ee ijtihaadka aqbasha ee zamanka iyo duruuftii amkinada ku xidhan ee isbedbedeli karta waa ka suurtagal iyadoo loo eegayo basharka iyo awoodooda, mujtamaca iyo waxay haystaan, cadowgooda iyo intuu leegya, waxaasoo dhan iyadoo loo eegayo waa wax u baahan daymo tiro badan leh. sida awgeed qaybta daymada u baahani waa qayb ijtihaad bashariya ku salaysan. haddii ijtihaad bashariya la sheego, dadaal bini aadam haddii la sheego, macnaheed waxa weeyaan sawaab iyo khata labadaba u dhici karaa. yani ninka caalimka ama ninka muslimka ee aqoonyahankii intuu ijtihaado ayuu gafi karaa. idan waxa camalkii uu sameeyey isagu ajar wuu helayaa, laakiin waa camalu maxay khata. ka dambeeya mansuuskumaha inuu kaa camalkiisii raacay waa maxay, waa inuu saxo sawaabka dhankiisa uu kaco. saa daraaddeed ayay culimmadu waxay tilmaamaan usuul bay leedahay siyaasa sharciya u baahan cidda fulinaysa inay si fiican u fahamto. usuushaasi midi waa tii fiqiga oo dhami uu isticmaali jiray. waa in usuusha la isticmaalaya laga istidlaalaya uu yahay qadiyadda laga baadhaya kitaabka qur-aanka ee kariimka, sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, ijmaacii muslimiinta iyo wixii ay ku ijmaaceen, qiyaaska oo ah wixii nusuustu ay sheegtay iyo axaadiistu laga qiyaas qaato oo wixii aanay sheegin la raaciyo, iyo adiladii kale tirada badnayd ee culamaai usuul ulfiqh ay sheegi jireen. almasaalix almursala, maslaxada la sii daayey, waa maslaxo la leeyahay sharciga nusuus diidani may soo aroorin, nusuus ictibaarisayna ma soo aroorin. waa masaalix mursala. masaa'il alistixsaan culamada qaar sheegi jireen, albara alasliya, wixii usuululfiqiga la istidlaali jiray oo dhan ee daliilgeli jiray, baabka kana daliil buu ka gelaya. waxaa kaloo la socda culammadu ay in badan tilmaamaan
qawaacidii fiqiga lagu isticmaali jiray ayaa iyadana in badan la isticmaalaa. مثلا بعد القواعد baan tilmaamaynaa maadaama ay masaladan ijtihaadaadka tirada badan la u baahan tahay waa masaa'ilka aanay u banaanayn dadka mubtadi'iinta inay ka waramaan. waa masaa'il ahlu cilmiga iyo hay-ad takhasus u lahuuna ay tahay inay ka waramaan. iminka waxaad iska moodaa casrigan dambe masaa'il siyaasa in laga dhigay waxay caamadu wadaagtay iyo dadkoo dham iyo qof waliba warkiisa ka dhiibto, qof waliba muranku ka dilaaco asaasi lagu wado. laakiin ma aha, waa maslaxad ummadeed, waa wixii ugu weynaa. hal qofoo in la daweeyo u baahan bay waxaynu idhahnaa atibada ha loo kulmiyo, yani takhasuska naftani si aanay u go-in oo loo ilaaliyo ayaa atibada intii inoogu roonayd baynu leenahay naftan iyay go-in. malaayiin qof in dagaal iyo dirir iyo beliya baas lagu gooyana waxaynu rabnaa inay habruhu ka shiraan ama odayaal qabiil isweydiiyaan ama caynkaasi oo hayru macquul. yani waxay ahayd hal qof baynu ogol lahay inaynu isugu geyno quwadeenna oo dhan inaynu noloshiisa ku ilaalino. waxay ahayd dadkii oo dhan marka laysu wada keenay noloshooda in la ilaaliyaana inay ahaato nukhbadii iyo dadkii u caqli badnaa, u aqoon badnaa, u diin badnaa, u alla kala cabsi badnaa, ugu faham badnaa qadiyaadkana inay ahaadaan dadka loo ururiyo. sidaa daraaddeed baabkani ijtihaadku aad buu ugu tiro badan yihi, mansuuskuna wuu ku yaryihi. yani waxaan uga jeedaa mansuuska qadaayaadka waadix ee aad aayad qur'aan ama xadiid go-aan u helaysa sideeda loogu dhaqmaa wuu kooban yihi. masaa'ilka cibaadaadka bay ku badan yihiin iyo caqaa'idda looguma talagelin caqli baniaadamku waa la dhexgeliyo. sidaa daraaddeed kuwaa nusuustaa ku tiro badan. salaadu boos caqli uu ka gala ma leh, meel walba xadiid baa lagu akhriyay in markaa waxaa la yidhahda in markaa farta la dhaqdhaqaajiya in markaasaa la yidhahda booskuma leh caqli. idan cibaadaadka iyo caqaa'idda nusuus haabita oo tiro badan oo sugan baa taalla. ama qadaayaadka caamka ee siyaasiga ku saabsan inta ugu badan leh nusuus caama baa taalla oo ah canaawiin aan la rabin in laga baxo, laakiin tafriicaadkeedu uu baahan yahay aqoon tiro badan leh, ijtihaad tiro badan leh iyo waay aragnimo tiro badan leh. saas daraaddeed ma aha baab uu ka warramo dadka mubtadi'iinta ahay, dadka bilaaba. culimmadu waxay sheegaan oo baabkan tilmaamaan qawaacid baa jirta bay yidhahdeen alqawaacid alfiqhiya almacruufa. inta ugu badan leh baababkani waxay ka mid yihiin baababka loo adeegsado. maalan tusaalayaal baan bixinayaa. qaacidada laa darar walaa diraar, nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiid buu ku tilmaamay laa darar walaa diraar, dhib iyo isdhibisi midna ma jirto. kelmadatan laa darar walaa diraar oo siyaaqu nafyi ku soo aroortay oo cumuumnimo faa'iidaynaysa waxay culammadu yidhaahdaan waa qaacida min qawaacid sharc, waa qaacida min qawaacid siyaasa sharciya bay ku tilmaamaan. waxay yidhaahdaan dararku yumnac wuquucuh, inuu dhaco waa la joojiyaa, hadduu dhacana inuu istimraaro waa la joojiyaa. haddii la filayo in laga hortago intuba bay leeyihin shareecada ayna faraysa. maalan adarar yumnac wuquucuh waa ijraa'aadka wiqaa'iga waxa loo yaqaano, waxa wax lagaga hortago oo dhan. maalan traffic log wuxuu ka warramaya, traffic log wuxuu ka warramaya inaan dhibi iman. waa ijraa'aad loo dejiyey inaan maxay socodku dhib keenin. haddii aan dhibiba jiri lahayn traffic loodama jireen, wax looga baahanyo kale ma jirto. laakiin si mashkiladda ka iman karta looga hortago ayaa loo dejiyay in traffic loo qaato. idan shareecada islaamiga waxay tilmaamaysaa wax allaaliya wixii darar ee la filaya inuu yimaado in laga hortago oo loo dejiyo ijraa'aadkii lagu joojin lahaa inaan waxaasi dhicin. hadduu dhaco waa in la difaaca. haddii la filayo waa in laga hortagaa. haddii uu dhacay oo hore u dhacay waa in aahaartiisa la tirtiraa. yani dararka dhacay aahaartiisa sidaa loo tirtira waxa wey inuu qofku cuquubo iyo jazaa helo, abaalmarin inuu helo, amase ciwad inuu helo, compensation inuu ka helo dhibtii soo gaadhay iyo wixii ku dhacay. waxaasoo dhan nusuus badan oo qur'aan iyo xadiida ayay masale kasta u daliishadaan. laakiin anigu waxaan isku dayayaa qawaacid guud inaan dul maro, waayo waxay cinwaanku yahay waa mafhuum asiyaasa sharciya.
kama waramayno markaa ususkay ku dhisantay majaalaad ku dhisantay qawaaciddeeda saa loo laakiin waxaan ka warramaynaa mafhuumka bal inaa fahmi kartaan guud ee siyaasa sharciya ay ka waranto مثلا قاعدة لبعض يدليشدان waxa kamida الضرر يدفع بقدر الامكان ضرر بعد dhib baa imanaysa difaaca dhibta la difaacaya waxay ku xidhan tahay inta la awoodo hadaan la wada awoodin wixii la awoodo lagama wada tagayo bay yiraahdaan مثلا قاعدة saddexaad bay sheegaan oo ah ihtimaalu akhfi dararayn labada dhibood tafudud in la qaato marar baa waxa dhacdo qofku inuu gaadho xaalad aanu wax kasta uu qabtaanay dhib beelaynin wada kasta uu raac dhib baa taala no way uu dhib la'aan u dhici kara waxa lagu xisaabtamaa markaas in la yiraahdo dhibta ka u fudud مثال aan idisiyo qaacidadii khadar iyo muuse qisadii dhexmartay khadar سورة الكهف إلى القرآن كوحو كغا ورمايا إن نبي موسى يمي ويديستين وحبره أو قلادين وحبرشده وراعه سفر بادي لقى سابين وحلا واكو بريا لكن أنا وحكو شرح مويا نسو عشا يقو بادين منه وحلا هي ويدين بويري خضر ساسو موسى قاعد صدي موسى خضر فعاشي سوات كيسا كرواي سؤال مركو وحسما يبا سؤال بكدبا ويديا ورسمينا كوب الله من بدور كركو يدينا عين كان اي عذر دار مر صدحات وحو يدي مر دنبه هدان وحكو ويديو waa kala tagaynaa mar saddexaadkiiba wax weydiiyay waxay noqotay in la kala tago dabeetana wuu sharxay saddexdii qadiyadood Muuse iyo soo kala maray Khadar mid kamid ah hadaynu tilmaamno doon bay fuuleen doonta noolilaan baa lagu soo qaaday dhaxda markii la marayay ayuu Khadar doontii loox ka saaray Muuse wuxuu yiri waxani wax macquul ma hadee nimankeena soo qaaday doontoodii inaad adigii daloolisaa sootan ku ballanay buu inaad aamusanaato ma waxbay weydiinin waa cudur daasa markii dambu Khadar sharxay arrimihii dhan wuu sharxay wuxuu yiri waa ma facaltuha an amri horta waxa laaliya waxaan sameeyay waxa anigu iskaynu sameeyay ma jirin ee waxay ahaayeen shariicadii aan raacaya sida tan dhigaysay muxuu doonta u dalooliyay wuxuu sheegay Muuse inuu ka dambeeyo nin boqora oo doon kasto hagaagsan qaadaya marka Khadar wuxuu kala doortay doonta in ma dadka masaakiinta hele laga qaado iyo inuu doonta ceeb u yeelo boqorku yiraahdo mid fiican ma haynaga sii daayo ay qolada tan dib u la noqoto labadaas uu kala doortay inaad xoolo bini aadam leeyahay ku tasarrufta marka hore waa mamnuuc bay ahayd nimankan doontooda loox iyo laba toona in laga saaro waa mamnuuc laakiin Khadar wuxuu joogaa xaalad uu og yahay in dadkan in doonto dhan laga qaado iyo iyadoo loox la inay raacdo inuu kala doorto wuxuu doortay markaasi halkii doonto dhan laga qaadi lahaa inuu loox iyadoo la ay uu loox ka tiro ay saasi ku raacdo culimadu waxay dhahay mas'aladan waa khafu dararayn waa illow dhib baa jiraysay marka masaakiinta taa u dhib yar ma hal loox baa u dhib yar mise doonto dhan ay waayaan baa u dhib yar wuxuu Khadar door biday marka inay hadda dhib yar tahay in hal loox laga saaro marka waa khafu dararayn waa laba dhibood oo meesha taala saadaradeed ba Sheekh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi waxa uu tilmaama وهذا باب تعارض باب واسع جدا لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة فإن هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فإنه إذا اختلطت الحسنات بسيئات ووقع الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين ولا يبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة على كل حال وهذا الدير والشيخ وانكسر نغلني وحاولي هي مركة تعارض كله يعني أدلة مركة إسكاكا خلافته dhibta meesha jirta ay dhib badan timaado waa baab aad u ballaaran buu leeyahay siiba waqtiyada
iyo meelaha ay yaraata buu leeyahay raadadkii nebinimada iyo khilaafadii nebinimadu ay ka tagtay markastoo yacni dadku diintu ka sii fogaadaba ijtibaaha kani uu sii tiro bataa waayo markastoo dadku mustaqiim noqdo oo uu toosnaado dhibtiisu way yaraataa markastoo dadka mushkiladiisu badato xalkuna wuxuu noqdaa wax adagoo qarjajac badan ay ku dhex jirayso oo aan noqonay ninkii saafiga ahaa ee dhanka quree tooska u soconayay sida daraad ayuu wuxuu leeyahay sheekh ibnu taymiya markastoo naqsiga kani uu ku dhaco bulshadatan su'aalahanina ama masaa'ilkanina way tiro bataan waana sababaha in badan keena buu leeyahay fitnada waayo dadka badh markay xasanada iyo sayi-adu isdhex galaan buu leeyahay dadka badh xasanaduunbaa u muuqato ay rajaxaan dadka badhna sayi-adunbaa u muuqato ay rajaxaan dadka badhna qadiyadday isu miisaamaano way eegeegaan saasi daraaddeed waxaa timaada tabaayun ilaaraa aaraadu inay tiro badato marka aan leenahay ixtimaal khafi dararayn waxaynu tilmaamaynaa marka shareeco la dabaqayo meel faadiya intaad timaado ku dabaqi mayso meel madhan heli maysid aan wax kala olin adiga taadun ay ka socoto marka kitaabka la akhrinayo se meel faadiyaad helaysa adiga taadun ka socoto yani waxa kala nooca haddii kitaab aan masaajidka ka akhriyo oo aan sheekh noqdo kursiga fadhiya kursiga sheekh khadaana fadhiya nusuustu waa inaan isa saara itijaaha saxa ay leedahay tilmaama laakiin waaqaca haddii la isdhaahdo ku dabaqa tuuro badan bay yeelanaysaa waxaana tuuraha u yeelaya bulshadan la rabo in lagu dabaqiyo intay diinta ka fogtay hadba inta waxa ay ka aaminsan tahay inta ay ku dhaqmayso inta gacan dabadeed ay ku jirto intay munaafiqiin leedahay intay dad saalixiin oo toosan leedahay inta ay dad samaha u gargaaro leedahay inta ay dad xumaa u gargaaro leedahay wax badan baa markaasi kaa hor imanaya oo aan ahayn nusuustii muran kama yaalo saa daraaddeed marka la tilmaamayo akhafu dararaynka markaynu sheegayno shareecadu wax darara ma wado waxay wado dhami waa samo laakiin bulshadabaa mashaakilkani ka imanaya u baahan in la xallilaa in la kala horaysiiyo qawaacidda marka baabkan laga warramayo la tilmaamo waxaa ka mid a qaacidada yidhaahdaan muraacaati alma'aal waictibaari ma'aalaati alumuur waxa markaa kuu muuqdo inaad eegin ee aad eegto waxa kan natiijada ka dhalanaysaa muxuu noqonaya maxaa ka dambaynaya maxay soo baxaysaa oo waa maxay inta aanad ficil fulinin inaad in badan ka fakarto natiijada ka dhalan kartaa waxay tahay مثل النبي صلوات الله وسلامه عليه عائشة وحكوري لولا أن قومك حديث عهد عائشة تلقى هدانا يهين كوا دين تكو عصب قريشي يعني هدانا يهين كوا دين تكو عصب وهدون دين تصوق علي كعبة دوان دمين لها أبو النبي قوليه ودول كان لصم لها كعبة دول كوا كعصنتين يعني ومال سرع أي الباب كجيا يعني دول كان دورة بكسو كعصنتين marka nabigu wuxuu leeyahay kacbada waan dumin lahaa dabeetana dhulkan ka dhisi lahaa dabeetana laba albaab baan u samayn lahaa in ay ka tagtay mushrikiintii carbeed markay dhisayeen yani kacbada waqtigii quraysheed oo nabiguna markaa dhowriya 20 jiryaan wali rasuulba noqonin ayaa daad magaalada qaaday daadkii baa dhinac ka dumiyay quraysh markaa waxa aqbashay inay kacbada dumiyaan oo dib u dhisaan laakiin waxay ku heshiyeen xoolo xalaal ah inay ku dhisaan xoolo riba gashiya waxaasi xoolihii xalaasha ay iska heleen soo ururiyeen baa yaraaday intii ay kacbadu ka dhisnayd bay gaari weyday marka waxay dhaahdeen aan ka yarayna hadaba kacbadu waa qol yarday waa gurigaan intii ka yarayna bay dhaahdeen dhismaha nus bay ka tageen intan xijriga yar la yiraahdo dhinaca kaga wareegsan intan kacbada ka mid ahay dabeetana intaasay ka soo guureen 6 foot 6 diraac bay dib u soo noqdeen oo ay ka jareen intii hadhay bay dhiseen kor bay u dhiseen waxay dhaahdeen meeshan sayid inagu controlo ninkii dooraaba aan u gelin meel sarana aan ka dhigno albaab qurnaanu yeelo furiisa haysano nabiguna markaa wuxuu leeyahay Aisha hadaan tolka imika soo islaamin kacbadaba intaan dumiyo ayaan saas cusub dhigi lahayo qawaacidii nabi ibraahim uu dhigay inta ka dhigo ayaan laba albaabna u sameyn lahaa mid laga galo iyo mid laga baxo ayaan u sameyn lahaa buu leeyahay nabigu muu yeelin muxuu yeelay wuxuu leeyahay waxaan ka cabsanayaa dadkan inay thawraan sameeyaan yani illa dumiyo oo sida loo dhisaa sidii sax ahayd laakiin haday khalkhal iyo rabshad keenaysa sideedan baa iska ahaatade maradaanay inteedan ba ay kacbadeedii ku ahaanayso sideedu nabigu u daayay salawaatu ullaahi wa salaamu alayhi
idan ma'aalaat al-umuur qadiyadu waxay ku gabagaboobaysaa u baahan in badan la eego مثلا munaafiqiin baa nabiga la noolay rabshad badan Abdullah ibn Ubay baa joogay munaafiqa oo rabshad badan oo mashaakil badan u geystay muslimiinta xadiisatul ifki ninkii sameeyay been abuuradka Aisha beenta ka sameeyay غزوة بني المصطلق markii dambe laga soo noqday ninkii wixii ku hadlayay samin kalbaki yakulak ninkii isku dirayay saxaabada gudaheeda nin aad u mushkilad badan buu ahaa shaakilkiisii markii la joogi kari waayay buu Umar ilaahi rasuulkiisii uu kana madaxa ka gooyo aan dilo waa munaafiq waa la wada og yahay bulshada dib ku haya in la dila waa suurtagal laakiin nabigu uu diiday wuxuu war bal hadilin ninkan wuxuu ka mid yahay ansaar gudaheeda way iska dishay wixii waayeel ka talin jiray ansaar oo dhamay xarb buucaad iyo xarb lubasuus bay ku madheen laba oday baa ka soo hadhay wax odayaala baa la yiraahdaa labada oday mid waa Amir al-Fasiq wa Handala aabihi wanikii cararay maalintii uu xud soo waday gaalada lahaa aniga tolkay raaciyana dhow markaan u gacan haadiyo kii kalena waa Abdullah ibn Ubay Abu Amir al-Fasiq wa Abu Amir al-Rahib kala oran jiray Christianity buu qaatay markii dambana Shaam buu cararay kii labaadna waa kan ninkan sultaanadu sugayay markuu nabigu meesha yimid boqortooyu sugayay waxaaba la tolayay taajkii la saari lahaa iyadoo taajkii loo tolayo nabi maxamed magaalada yimi salawaatullaahi wa salaamu alayh dadkii dawladda islaamiga ayd baa dhisantay Abdullah ibn dib uma eegin marka isagu wuxuu arkay dawladda islaamiga inay kursigiisa qaadatay oo uu waayay booskii madaxnimo saasi daraadeed buu mashaakilkan tirada badan la waday Umar ibn Khattab ay ilaahay rasuulkiisa kana madaxa ka jaro wuxuu nabigu yiri dadku kuma sheekaysan doonaan Maxamed asxaabtiisa wallaah wuxuu diiday in la dilo isagoo ilaalinaya sumcadan dawladda islaamiga iyo bulshada islaamiga iyo inaan mujtamacaad kale ku warramin Maxamed inta yar la socoto laaya ama dadka isaga la jooga buu laaya waxaan qadiyadka u tilmaaminaa waxa weeyaan ma'aalil umuur buu eegay nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi arintu waxay ku gabagaboobayso sida daraadeed bay nusuus xataa soo aroortay waqtiyada dagaalka lagu jiro xuduudda ma lagu oogayaa meeshii gaalkii muslim isku hayeen iyadoo suurtagaltay qofka dad daciif iimaan yahay inuu baxsan karo dabeetana xagga kale uu gudbi karo qaacido kale sheegan culimadu ah taqdiim al-aham wal-awla السياسة الشرعية وارمه سيدي أكل ووين الله كله الرئيسية وواتي نصوت المامني قضاياتك سيدي أكل مهم سيين سبب وضب ما يكون حدنان كرتا وحيكون حدنان كرتا وقت جاي عليل جيسة وحيكون حدنان كرتا أود يا سيدا عجسي وطهنا ما إذا أوده هيسنين وحيكون حدنان كرتا شيء جاي فضيلة ديسة إذا مركز طبعا شيء وشيء إنه كفض بداية مكانته in laga horumariyo marar bay keenta masaa'il kale in laga horumariyo si kala hadaan tilmaamo dharfiga ama waqtiga la nool yahay wax badan buu xadeeyaa qadaayadku marna nusuus qurabay ku kala awleysan oo marka shariicada si caam loo eego tawxiidka ugu horeeya kaanul islaamka ku xiga saasay u kala horeysa midna waa awlawiyaat nisbiya yani wax kale marka loo eego bay kala horeysa وأما وقت قال تشوجو أما أود اللي هي يبشروا يتالك على هاي يوحي للنوع نصوص قرآن كي حديث كاي إن لا طبقه وبالشدة لغو طبقه وحيوبا أنت مركا أقوم تربضا هي أو تربضا لوضا أقوم بيوبا أنت وهو حطبق كرارنتي العلماء الربانيون markase nadariga ay tahay lagu sharxayo masaajid gudihii ama dariska la jeedinayay hor fadhidaan ay tahay طالب العلم kasto bartay markaasi waa akhri kara ama se waa jeedin kara laakiin markay tatbiiq iyo maamul noqoto ma fududa inkasto dadka iskala fududahay Soomaaliduna hore u maamaado waxay yiraahdaan habar fadhida lagdiri wax kala fudud bay yiraahdeen يعني لما قف لقدمه يا هذا رتم مو هلكا قبطه لكن هذا ادغو اسكشانو لقدينta ku jirto in aad halka ba haleelin baa laga yaabaa adagu marka kan sheegayso
marka qofku marka aanu amalka isaga haynin oo gacantiisa ku jirin wax waliba waa la fududiin ama meesha laga eegayo aad u fududay sida daraadeed aan tusaalayaal basiita bixiyo waa tusaalayaal fardiya laakiin bulshadana aan uga tusaale qaadan karno مثلا النبي صلوات الله وسلامه عليه نبا ويمي سواء على يوله هلكت إلى رسولك سوى هلاك سمي وقفتي بين رواياتك قاركود شيغيان war maxaa dhacay baa la yidho wuxuu yidhi islaantaydi baan ramadaan u galmooda wuxuu nabigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh raqabo xore inta luqunta istaabtuu yidhi taa mid aan ahayn ma haysto ilaahay rasuulkiisiyo waxa la xoreeyaba ma haysto waxaa lagu yidhi ninka kan waxaad soontaa shahrayni mutataabicayn laba bilood oo isku xiga soon wuxuu yidhi ma haddaan soomi karayo managa islaantaba isku lugoy lahayd ilaa wuxuu ka cawday wuxuu nabigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh 60 miskiin قودي oo sadaqa la bax bar madowba ma lihi buur waxaan haystaa ma jiraan taatara iska fadhiistay ninkii nabiga iska aamus waxa la keenay sadaqa la wado sadaqadii markii la keenay ayuu nabigu ku yiri salawaatu ullaahi ta'ala ayna saay warmee ninkii wax weydiinay waa kan baa la yiri qaada buu yiri taasoo iska bixi yaani sadaqa daarad haysanin tan qaado sadaqada buu nabigu yiri iska bixi wahal bayna labatayha man afqaru minni buu ilaahay rasuulkiisa Madiina labadeeda buurood labadeeda xaraarood oo ma mid iga faqirsan ma joogo wax la siiyo buu mid iga faqirsan wax la siiyo ma miya joogo qaado reerkaaga siibu nabigu ku yiri yani maxaa keenay ninkan intuu dambaabay oo kafaare laga rabay ayaa isagii wax la siiyo la yiraahdo qaado cun waxa keenay ogaanshiyihii la ogaaday waaqac ninkan uu ku nool yahay iyo darfiga uu joogo saasi daraadeed buu nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi tanaazulaadka ilaa xadka intuu gaarsiiyay markii dambe wuxuu ogolaaday isagoo aankii dambiga sameeyay haddana waxoogaagii la siiyayna warbaladiga iyo reerkaagu iska cuna idan in naska la tabaqaa oo waaqaca markaa jooga lagu tabaqaa waxay u baahan tahay ijtihaad badan iyo aqoon badan iyo daraasad badan aan mas'ala labaad tilmaamo waxa laga yaabaa salaada waynu wada naqaanaa nusuusta quraanka iyo xadiidka ku soo aroortayna waynu naqaanaa laakiin marka loo dhaadhaco awoodda qofka quraanka ilaahay wuxuu leeyahay laa yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shariicada waxa markasta inugu waajibaynteenu aweyno intaasaana islaamka iyo nasaaraya in la fuliya sadaradeed ayaa haddii qof maalan aanu istaagi karin maxaynu leenahay markii yidhi isma taagi karin nabigu muxuu ku yidhi salli qaacidan adoo fadhiya tukaan la yidhi soo ma ahayn ka waran haddaan akhriyo nusuustii sheegaysay salaadu istaagu inuu rukun ka mid yahay arkaanta salaada ka mid ah salaada aantuna rukunkaasi inaanay asaxin nusuusta haddaynu isku akhrino ka waran waa sax nusuustu waana ka mid mana saxda la'aanteed laakiin kani wuu awoodi waayo way ka dhacday bulshadu waxay awoodi weydo way ka dhacaysaa sharcadu bulshadu waxay awoodi weydo kasta way ka dhacaysaa idan waxa ay ku xidhantay in la garan karo daaqada bini aadamka ku hortaagan inta uu yahay awoodiisu intuu yahay inta uu qaadi karo inta uu xamili karo sida awgeed nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayaa gabadhi u timi iyadoo ashtakoonayso ninkeeda ka ashtakoonaysa dhowr mas'ale ay sheegtay waxay sheegtay inuu dilo waxay kaloo sheegtay inaan u ogolayn inay soonto oo soonka ka jabiyo waxay kaloo sheegtay salaada subaxna inaanu si fiican u kicin saxaabiga caynka la sheegayana jalsadii nabigu fadhiya waa Safwan ibn al-Mu'attal
meeshuu fadhiya xadiiska abi daawud buu ku yaalla waa xadiis saxiixa war safwan bal warran baa la yidhi wuxuu yidhi kow ilaahay rasuulkiisiiyow laba suuradood oo qur-aanku aan aqaano unbay mar kasta igaga tukataa anna waxaan ku idhi labadaanna anigaa ku tukanaya adu qur-aan badan baad taqaanaaye qur-aanka kale ku tuko wuxuu nabigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh suurad qura hadday tay dadkao dhan waa ku filantay yani ha ku maagin taasi wax laysku qabsado maaha iyana ha ku tukato adna ku tuko mashaakil ma jiro wuxuu yidhi nabigii ilaahay rasuulkiisiiyow soontan ay leedahay wuu ii diiday inaan nin dhallinyaro iminka guursaday baan ahay dabeetana sunayaal umay dabada isugu qabatay gabadha tani dabeetana wuxuu nabigu yidhi gabadhina ma soomi karto soon sunno ah baa laga warramaya ee ninkeedoo ogolaada mooyaane yani nolol reer baa ka dhaxaysoo kale tanina inay ateecdo qadiyadda ku ateecdana waa waajibaadka reerkaba loo samaystay tanna waa soon sunno ah soonta sunnii mid la isla waafaqay waa inay noqotaa saa daraaddeed buu nabigu yidhi gabadhina ma soomi karto bikayri idni zawjiha masalada kale buu yidhi ilaahay rasuulkiisa way kuu sheegayso anigu reer baan ka dhashay reerkayga waxaa lagu yaqaanaa inaan cidiba kicin cadceedda kululaata mooyaane yani xanuun bay qabaan xanuun hurdaa bay qabaan xanuunka hurdada uu dadka uu ku dhaco dadka badhba ka mida iyagoo waddada maraya gam ah isagoo sidiisa uu soconaya gam ah dadka badhba ka mida hadduu kaco aan laba kicin karin hadduu isagoo hurdo intaad qaado aad waddada dhigto iskaga tagto sidii uu hurdaya oo uu quurinaya waxba kala ogeyn ninkani wuxuu sheeganayaa markaasi in xanuun heritage reerkoodu oo dhami leeyahay inuu qabo inaanu salaad uu sagsaagayay aanay ahayn wuxuu nabigu ku yidhi markaa toosta tuko yani markaa toosta indhaa kala qaado dhallinyaradu iyo moodan xadiidkan inuu daliilu yahay salaada subax oo laga tagaa khatar weeyaan laakiin waxaynu tilmaamaynaa awoodda qofka bini aadamka iyo istitaacadiisu inay leedahay daymo badan in la daymoodo oo nusuusta marka la tabaqayo ama jamaaca ha noqdo ama bulsho ha noqoto ama ummad ha noqoto ama qof qura ha noqdee fiqul istitaaca in la eego awoodda dadku iyo inta ay gaadhayso sidaa awgeed ayaa waxaa muhima in siyaasa sharciya markaynu ka warramayno in loo eego xaaladda ummaddu halka ay marayso iyo waxa ay qaadi karto kaasi waa mid waxaan leenahay siyaasa sharciya markaa macnaheeda markaynu soo duuduubno waxay noqonaysaa in wixii wanaaga la kobciyo la dhammaystiro wixii xumanaana la yareeyo nusuusta sharciga iyadoo la raacayo haddii qadaayaadkan sidaa shareecadu isugu miisaantay si aan ahayn la damco in la isugu miisaamo dhib badan baa ka dhacaysa walidaalik naska qur-aanka ama xadiidka iyo tabaqaadiisu horta waa laazim in la tabaqo shareecadu ma aha yani wax laga tagtaga maaha mana jiro nidaam kale oo dadka badh bay maskaxdooda waxa ka guuxaysaa in mujtamaca inta nidaam yaroo kale lagu dhaqo loo soo bisleeyo shareeco ma jiro kaasi nidaam dad shareeco u bisleeya maba jiro dunida nidaam waliba isagaa isbisleeya sida daraaddeed shareecada dadka inta hadba ay fulin karaan bay fulinayaan ilaa iyo kamaalkeeda laga gaadhayo uma baahna in nidaam kale oo mustawrad oo dhexo oo iyada intuu kobciyo meel gaarsiinaya ama caqli kale lagu taageero uma baahna laakiin shareecada ayaa nidaamkeeda siyaasigaaba wuxuu leeyahay in loo dhaqo qaabkii loo fulin lahaa intii markaasi dadka waajib ku noqon lahayd kaasi waa cumuuman yani ra'yi guud oo aan rabay in laga fahmo asiyaasa sharciya majaalaadkeeda lagu tabaqo majaalaadka ama siyaasa sharciya ay ka waranto waa nidaam ilxukmi baa ka mid ah iyo qaabku noqonayo nidaamka dowladnimo ama waxaana u yaqaaneen alqanuun adasturi walqanuun alidaariy waa inuu siyaasadda ku salaysnaado yani sharciga ka waxaynu u daba dhignay inuu shaygu yahay shay laga rabo inuu shareecada waafaqsanaado waxaa ka mid ah shu'uun ilmaaliya fi dawla waxa lagu tilmaamo ama nidaam ilmaali ama alqanuun ilmaali waxa laaliya wixii ku saabsiisan budgetinka iyo dowladda dhaqaalaheeda iyo qaabka ay u expense-garaynayso iyo qaabka loo isticmaalayo waxaa ka mid ah siyaasadda sharciga ah shu'uun ilmaaliya alcaama ama alqanuun altijaari qaanuunka dhaqaale guud ee bulshadu ay leedahay baac mushtar oo dhan
isaguna waa inuu hoos yimaado shareecada islaamiga waxa kamid ah ashuun alqadaa'iyya waxa laaliya wixii ku saabsisanaa qaabka maxkamadaha iyo ijraa'aadkeeda iyo muraafacaadkeeda iyo booliisankeeda iyo basaasisteeda iyo dambi baadhisteeda iyo waxaas ku saabsan shareecadu iyo nidaam bay ka leedahay waxa kamid ah ashuun aljazaa'iyya waljinaa'iyya wixii ku saabsiisan tashriic aljinaa'i wal qaanuun aljinaa'i qaanuunkan criminalka loo yaqaano iyo wixii ku saabsiisan waxa kamid ah majaalaadka siyaasada sharciga ka waranto العلاقات الدولية أو القانون الخارجي أما السياسات الخارجية حديدة بني آدم كون حياة دولة ده برشوين كدقالة النبضة سفير ده يوحي لها المالة سياسة شرعية مواقف بيكال هذه وحان شيء نوردن دمان تدو حيسوق لينا السياسة الشرعية ومجالات كأي سياسة شرعية كورنته جامد ولمن التفسير كيسية دراسة ديسية وحسكا قارة لكن درس كان انتي عن كفهمي وحون بانو جيدي inaynu sharaxno shariicada islaamiga in la tabiqi karo xaalad kasta oo lagu jiro inaanay jirin waqti la yiraahdo dadkaas soo bislaanayo markay meel soo gaadhaan ba sharci lagu dabaqay inaanu jirin in xaalad kasta ay joogaan shariicadu ay oofinayso baahiyahooda iyo waxay u baahan yihiin iyaduna ay u train gareynayso oo si hor kacayso xaalad tan ka sii sareysa oo ay ka sii xoog badan inay jiraan saasi daraadeed ba bulshadii muslimiinta hore nabigu soo tarbiyay salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxay soo mareen xaalad dacf ay liiteen mar laga xoog badnaa mar ay xoog badnaayeen mar ay dawlad weyn ahaayeen mar ay labadii dawladood waaweyn ee dunidaba la loolamayeen oo dhigmayeen xaalad kala gadisan bay soo mareen bikulli hadhihi alxaalad siyaasa islaamiya ba socotay markii marka la joogay siyaasa sharciya ba la isticmaalay markii madiina la joogay siyaasa sharciya ba la isticmaalay bikulli hadhihi alxaalad qawaacidatan marka ay sheegayaan runtii fiqh tira badan bay u baahan yihiin laakiin dadka qaar ba hatta qawaacida qalad baa loo fahmaa dadka badba u fahma akhafu dararayn marka la leeyay wixii fuduudun inay shariicadu leedahay ma marka qaar kood ba nadariga sharciga ta adag ay tahay Abu Bakar markii uu dawladnimada qabtay islaamiga ayaa waxa dhacay maxay ridadii baa yimi Abu Bakar wuxuu yiraahday hadii dabar leeydiido waan dagaalamaya saxaabadii kale ay dhimad dabar been ku dagaalanaa arinta aayar saatan ma wuxuu arkay diinka buuxu inuu ka khatarsan yahay waxan ay ka waramayaan oo dhan saasi daraadeed buu ku qamcay hadii dabar loo diiday inuu dagaalamayo markuu masaladii u sharxayna saxaabadii waa aqbaleen idan tii adkayd bay u arkayeen marka uu leenahay akhafu dararayn ma akhafu dararayn fi al-uqul wa akhafu dararayn fi sharii'a wa shariicada mawaaziinteedu siday u kala koraysaa ma ahayno inagu sida caadiga u qiimayno shariicada mawaaziinteeda waxa ugu sareeya diin meeshay diintu ku halaagsamayso waxa la yiraahdaa jihado nafta ha u baxdo naf bixisba waxa laga doortay maxay in diin ay hagaagto idan waxaan uga jeedaa qawaacida aynu sheegayna xataa sharaxooda iyo tafsiirkooda u baahan faham sharciyo fiican shariicada laga arko ala kulli muusara way dhinac taagan yaanu malaynayay halkaas aan ku joojinayaa wallahu a'lam billahi tawfiq